gaarka ee Soomaaliya iyo duqeyda dhaqanka ee ka soo jeeda gobolkaasi Hiiraan ay ku qaateen magaalada Muqdisho kaas oo loogu arinsanayay sidii ay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay maamul ugu sameyn lahayd gobolkaasi Hiiraan oo xilligan ay ka taliyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo ururka Xisbul Islaam oo iyagu ka soo horjeeda xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya. Dhammaan waxaan u sheegayaa dadka gobolka Hiiraan degan way maqlaayeen shalay wixii ka dhacay ceelasha biyaha inay ka dhigayaan waan u sheegayaa waana ka codsanayaa waxaana sameyn doonaa haddii alla idmo waxaan ka bixi doonaa gobolka barasaab ayaa hadda la magacaabayaa barasaabkaas marka la magacaabo guddi caalamiya ayaa muxuu ahaa ka soo baxaya gobolka Hiiraan iyo ciidamo markaasaanu xuray doonaa haddii Ilaahay yiraa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhammaan wixii dhacay oo u horeeyay wasiirkii amniga qaranka Soomaaliyeed Umar Xaashi Aadan iyo wixii hotel Shaam bishii 3deedii ka dhacay ay ku dhamaadeen wasiiradii qaaliga ahaa oo dawladda ilaheeda ahaa ardadii dalka bixi ka maalin wax ka qaban lahayd yani intaqana qaranka iyo taqaadiirtii wariyaashii dhammaan hooyooyinkii iyo dadkii ku dhamaaday halkaas ayagana waxaan leeyahay intaas dhacday dadka Soomaaliyeed hadduu dambiil leeyahay hore anugu sheegay in cid laga adag yahay aysan jirin oo cidda xaqal way adag tahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay fadhiga ka kaca sharaftiina difaaca. Nabadoon Xooshow ayaa tilmaamay kulanka xukuumadda iyo duqeyda dhaqanka ee reer Hiiraan ay isla meel dhigeen sidii maamul loogu sameyn lahaa gobolkaasi Hiiraan isagoo sidoo kale sheegay toddobaadka foodan lagu soo hayo inay gobolkaasi Hiiraan ay gaari doonaan maamulka cusub ee dawladda u magacaawday iyo ciidamo ka soo jeeda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya hase yeeshee lama oga sida ay wax noqon doonaan iyadoo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ciidamo ka tirsan ay gobolkaasi Hiiraan dagaalo xooggan ay ku dhaxmareen kaas oo sababay inay magaaladaasi la wareegaan ururka Xisbul Islaam isla markaana ay halkaasi maamul u sameeyaan. Waxaan u sheegaynaa weega madaxa nagu soo haya hal maalin ma dhaafayso ku dadka reer Hiiraan oo Hiiraan danaynaya wax shaqada xamar ee dawladdu uga maaribno mooyee wax halaala wixii damiir u Hiiraan ay ka dagayaan adeer waxaan u marnay oon gaarsiinay warka wasiirka arrimaha gudaha Sheekh Cabdullaahi Cali Cumar waxaan gaarsiinay ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaan la kulanay madaxweynaha Soomaalida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya meel ku gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la kulanay saddexdaas mas'uul ayaan muxuu kala tashanay iyo muxuu gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe la baarayay wadajir kale ma jirin waxaan baaraynay muxuu ninka noqon doona ilaa nin adag inuu noqdo la rabaa oo muxuu aaminka loogu qabo ninkiina waa la helay asagaas ayoo garbale ayaa la diri doonaa hadalada dolaadka soo socda midka inta laga baxaa weey laakiin toddobaadka saddexaad haday ku jiraan anigu yani makaroofad ma afka saarima waxaan u sheegayaa jaaliyadaha reer Hiiraan oo baaq ugu jeedinayaa codsi inay gobolka wax ka xoreeyaan jaaliyadaha reer Hiiraan ayaga oo dadka kala tashana meesha ay wax soo dhigayaan. Xuseen Nuur Geesay